Somaliland waxaa saldhig u ah nabadgelyada. Waxay imika saxaafadiina waxay iga duubaysaa waxaan xildhibaan ku ahay, waxay dowladnimadeenu ku jirtaa, waxa shacabku ku nool yahay, waxa dunida aynu ka iibinaa, waxaanu bartaa ku soo gaadhnaa waa nabadgelyo. Laascaanood mushkiladda ka dhacaysay ee soo noqnoqotay ee dilalka joogtada ah dhibanaha koowaad cidda ka ahayd wuxuu ahaa xisbiga waddani. dilkii ugu dambeeyey laascaanood ka dhacay ciddii lagu dilay wuxuu ahaa guddoomiyihii xisbiga waddani ee gobolka Sool, isagoo sidoo kale ahaa xildhibaan golaha deegaanka ka tirsan. mar kaste ka xisbi ahaan, ka ummad ahaan, ka xildhibaan ahaan waxaanu taageersannahay in la sugo nabadda Somaliland, in ummadda nabaddeeda loo ilaaliyo. laamaha amniga ee wasiirka arrimaha guduhu kow ka yahay ee jannanadu laba ay ka yihiin waanu ku barbar taagannahay ilaalinta nabadgelyada Somaliland iyo qarannimadeeda haddii aanu nahay xisbiga waddani. dadka la saaray maatada ah nidaamka loo maray runtii nidaam qurux badan muu ahayn. dhaqan baa jira, diin baa jira, dadnimaa jirta. kow waxay ahayd dadka in nootiis la siiyo, in la yidhaha ku diyaargarooba muddada intaa laga inaadu dalka kaga baxdaan. waa dad nabadgelyo darra ay soo qixisay oo nabad Somaliland soo biday. dadka dhaqanka iyo diintu ilaalisa waxa kow ka ah dumarka iyo carruurta. wayna damqaysay runtii in dumar iyo carruur baylah iyo balanbal badani ka muuqdo bannaanka loo saaro. wax dhaqankeenna, dowladnimadeenna, dadnimadeenna, caado iyo curfi u ahaa may hayn. nidaamka dowladeed iyo sugidda amniga dalka, laamaha amniga ka hor dhici mayno. ma baadhid bay sameeyeen? waa kow. ma dadkan dembi baa lagu helay? ma maxkamad baa xukuntay inay baxaan? ma xukun dowladeedoo laga sinaabuu ahaa? intee in leeg baa nootiis la siiyey? hantidooda ayaa la wareegi karayaa? sidee loola wareegayaa? waxaasoo dhan waxay ahayd runtii nidaam iyo qorshe dowladeed oo adag in lagu galabay. timay dhicin. aadna taa waanu uga xunnahay, waynana damqaysaa. hadda mar labaad in aad dowladdu ugu dhug yeelato wixii dhaawacaya qarannimadeenna iyo quruxdeenna iyo dowladnimadeenna waanu ku baaqaynaa. arrinta kalen maanta doonaya barta inaan kaga hadla waxa weeyaan, waxaan arkayey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ninka Rooble la yidhaahdo oo runtii ereya naxli iyo nacaybshiyo muujinaya ku abuuraya ummadda Soomaalida. Rooble ummaddu waxay malaha u haysataa inuu ra-iisul wasaare Soomaaliyeed yahay. horta waa ra-iisul wasaare reereed. dhalishu Somaliland ku dhaliilayana hadduu dhiigga shacabka Muqdisho joogaa aanay isaga waxba laahayn, annaga dhiigga shacabka Somaliland joogaa dheema nagala qaalisan. markay timaado ilaalinta nabadgelyada, markay timaado dhowridda xuquuqaha asaasiga ee nafta iyo maalka iyo dhiigga iyo muwaadinimada Somaliland leh, waa mid aanu kala simannahay xukuumadda. waa mid aanu ku taageersannahay sugidda nabadgelyada xukuumadda annagoo mucaarida oo kala aragti duwan, laakiin Somaliland baa namidaysa. waxaan leeyahay Rooble, mixnadda iyo munaafaqadda aad doonaysa inaad ka dhex dhaliso ummadda Somaliland shacabkeeda iyo shacabka Soomaaliyeed, haddii aad dadka wax u qabanayso qaraxyada Muqdisho ka dhacaya ee dadkaas soo qixiyay baad wax ka qaban lahayd. nidaam xumada Muqdisho ka jirta ee taandhooyinka la isku dooranayo ayaad wax ka qaban lahayd. shacabkaa dhibaataysan ee qowraca iyo qaraxa ka soo cararaya ee barta soo magan galay marka horeba kaama yimaadeen hadday nolol adiga ku bidayaan. adiguna waa adigii Hargeysa nabadda iyo nolosha ku haystay ee joogay. waa adigii shacabka Somaliland ku dhex noolaa. cid curfi iyo cuqdad ku haysa ma jirin.
waxaan ku leeyahay curfiga iyo cuqdadaad ummadda ku kala dhex abuuraysaa waa taa maanta muqdisho aad ku baabiinayso waa taa taariikh xumada maanta aad ku leedahay inaad ka waantowdaa kuu fiican iskuliskaad ummadda isku lisayso xisbi ahaan xildhibaan ahaan iyo ummad ahaan ma taageersanin dad Soomaaliyeed oo dalka marti ku ah in si degdega loo saaro in hantidooda lala wareego waxaan kula soconana xukuumadda maaha laakiin laascaanood iyo gobolka Sool Somaliland iyo duniduba waqtiga waxa ka dhacaya inay tahay ama dhibta ay tahay waa dhiigga dadkoo dhayalu daadanaya in dhiigga dadka la joojiyana wasiirka arrimaha gudaha ku taageersanna jananadaanu ku taageersanno madaxweynaha ku taageersanna shalay tole cidii la dilayay ee baaskoolada lagu dhuftay ee meedkiisa loo soo sheegay gudoomiye xisbiga wadani baa cid kale ma wahayn dabcan khalad uu dhici karaya laakiin in la boombooniyo oo waji siyaasiya laga dhigo oo roob lagu ka dhigo waa ayaan dar Somaliland baanu ka simannahay mucaarid iyo muxaafidba adiga waxa ku taala aayaha shacabka muqdisho ee filimada hindiga aad ku dul shilaysaan inaad ka talisaan marna taandheer aad isku daawanaysaan oo isku dooranaysaan marna aad maareyn kari laadihiin malaayiinka muqdisho ku nool ee nabadgelyo darradu haysato ee dhiigoodii dheecaankooda maalin kastaba dhigihiina ku soo dhacaya ee qaraxa lala beegsanayo laascaanood sababaad wax uga sheegtay xukuumadda Somaliland adigoo iyo qayrka toon uma taalo waxaan shacabka Somaliland ugu baaqayaa waxaan xukuumadda ugu baaqayaa gobonnimo nabadgelyo horumar wanaag ayuu Ilaahay na siiyay war dadka martida inagu ah war dadka Soomaaliyeed dadkeena la jooga war dadka nabadgelyada ina soo biday war dadka birmageydada ah war dumarka iyo caruurta u badan aynu xaq dhowrno oo milgihiya maamuuska Somaliland ay lahayd aynu ilaalino oo talaabooyinka noocana ee insaaniyadda taabanaya ee dhaqanka taabanaya ee diinta taabanaya ee dadnimada taabanaya ha loo tala badsado si guud waxaanu ka wada simannahay mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani afayeenka xisbiga wadani xildhibaanka aqlabiyadda shacabka Somaliland inaanu dawladdeeda Somaliland xukuumadda Somaliland aanu ku barbar taaganahay inay nabadda sugto inaanu dhiigga Somaliland muwaadiniinteedu aanu dhaylu daadan wala awdal baanu ogolayn wala marood sheex baanu ogolayn wala sanaag baanu ogolayn wala sool baanu ogolayn laakiin in laynagu siyaasadayo dadka martida inagu ama xukuumaddana waxaanu ugu baaqaynaa inay arrimaha insaaniyadda taabanaya hoos ay waqto laakiin wixii amniga waanu taagana qolada Soomaaliyana waxaanu leenahay gaar ahaan ninka rooble waxaanu leenahay gaar ahaan ninka rooble waxaanu leenahay rooble waanu ku garanaynaa hargeysaanu kugu garanaynaa Somaliland wanaagaad ku haysatay baanu kugu garanaynaa maanta kii Somaliland waxa kula hadlahay matid dunidana waxaad u sheegatay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed laakiin anagu waxaan ognahay inaad ra'iisul wasaare reereeta ummadda ligooyada ka daa naxliga iyo cuqdada iyo boqdiga aad ku kala dhex abuuraysana ka daa imikana haddaad dadka wax u qabanayso waa kuwa ku yimid rehabilitation u samee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.